maxaa dhici kara haddii uu dhinto madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un? The North Korean leader Kim Jong-un is in grave danger. I just have to say to Kim Jong-un, I wish him very, good luck. waxa uu muddo dheer ahaa hogaamiye ay reer galbeedku mar uun jeclaan lahaayeen in ay maqlaan warka sheegaya dhimashadiisa. waa nin talada ka dhaxlay aabihii oo isna aabihii ka sii dhaxlay. waa 3 jiil ama fac oo isdhalay. ma jirto qaab kale oo loo bedelo madaxweynaha dalkaasi. geeridu waa waxa kaliya ee kursiga dhaafiya. mar kasta oo uu dhinto mid xilka haya waxa bedela mid kale oo uu dhalay. nidaamka dhaxaltooyadu waa mid gabi ahaanba duwan. waa hanaan ka gedisan ka Soomaaliya iyo dalalka kale ee la midka ah. tusaale ahaan Soomaaliya sida uu dastuurku qabo sabab kasta oo madaxweynuhu xilka u baneeyo waxa uu dastuurku dhigayaa in afayeenka baarlamaanku si ku meel gaadha xilka u qabanayo muddo bil ah inta laga soo dooranayo madaxweyne kale. tusaale kale Australia haddii uu geeriyoodo ra'iisul wasaaraha talada haya waxa xilkaasi si toos ah ula wareegaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka ilaa iyo inta dalku yeelanayo hoggaan cusub. laakiin wadamada shuuciga sida Kuuriyada Waqooyi ma aha qaabkaas. dhaxalka reer Kim ee 70 jirka ah waxa isu bedelay awoowaha, aabaha iyo wiilka. sidii marar hore dhacday madaxweynuhu isaga oo dhintay ayuu weli ku sii magacawnaa xilka madaxtinimo ilaa iyo inta laga soo xulay mid ka mid ah wiilalkiisa oo bedel noqonayay. waa hubaal inaan cidina ogaan karin dhimashada madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi marka laga reebo golaha sare ee dalkaasi oo aad uga agdhow oo marka dambe go'aansanaya goorta ugu macquulsan ee shacabka la wadaagayo ama sida rasmiga loo shaacinayo geerida madaxweynaha. waa sidii dhacday markii uu geeriyooday madaxweynihii kan ka horeeyay kaasi oo 2 maalmood dhimashadiisa aan dadka la wadaagin. muddada xilligaasi ka dambaysa waxa dalka oo dhan la gelinayaa baroordiiq aan la ogeyn goorta ay dhamaanayso. yaa bedeli kara Kim Jong-un? madaxweynaha talada wadankaasi haya oo xilka qabtay sanadkii 2011 malaha wiilal iyo gabdho qaangaar ah oo bedeli kara haddii uu isagu xilka baneeyo. caruurtiisa midkan ugu weyn waxa uu dhashay 2010 waxaana la ogyahay in walaalkii oo ay suurtagal ahayd in xilka uu kala wareego lagu kharajiyay dalka Malaysia. si la mid ah waxa gacanta madaxweynaha ku baxay adeerkii oo isagu amray in la kharajiyo kadib markii lagu eedeeyay in si qaldan uu u isticmaalay hubka lidka diyaaradaha. taasi waxay ka dhigaysaa in aan si toos ah loo saadaalin karin cidda rasmiga ah ee qabanaysa talada wadankaasi muddada 70 sano dhaxaltooyada ahayd. falanqeeyaasha qaarkood waxa ay ku doodayaan in dhimashada Kim Jong-un ay sababi karto in dalkaasi uu galo dagaal sokeeye kadibna ay dhacdo faragelin toos ah oo kaga imanaysa Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha. qaar kale waxa ay qabaan in dhimashadiisu ay tahay dhamaadka Kuuriyada Waqooyi taasi oo la macnaa in labada Kuuriya ay dib u midoobi doonaan. laakiin waxa jira war kale oo aad u muhiimsan. Kim Yoo Jong waa gabadh la dhalatay madaxweynaha majaraha u haya dalkaasi. waa haweeney saameyn xoogan ku leh siyaasadda dalkaasi oo ka tirsan golaha sare ay taladu ka goodo. waa 2 qof oo aad isugu dhawaatan iyo yaraantoodii. labadooduba waxay hadda ka hor waxbarasho u aadeen dalka Switzerland. hadda ka hor waxa warqad magaceedu ku saxiixan yahay ay hanjabaad ugu dirtay dalka dariskeeda ee Kuuriyada Koonfureed iyadoo ugu goodisay in dalkeedu uu adeegsan doono hubka sida baan wax u gumaada ee nuclear-ka. xildhibaanayaashu waxa ay xilligan qabaan ama si ay ku tilmaamayaan in saadaasha ugu macquulsan ee bedelka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay noqon karto walaashiis oo daahaan ka yar. taasi oo ka dhigaysa in taladu ay weli ku sii urursanaato gacanta qoyska 70 sano hayay.